waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين هلقا كدو بدونا عشرة دوكسي هوسا دحي عقال سكوليس قارهان مادة مركا علم برشو فصلة تضباط. waxaanu ka bilaabi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo cutubka afraad ardayguna wuxuu ka eegan doonaa insha Allah buugiisa daawacan 117 haddii aynu markaasi insha Allah iska bilaabano casharkeena waxaynu xusuusin doonaa cutubyadii hore aynu markaasi soo qaadanay oo ah 3 cutub hore cutubkeenii koowaad oo ka hadlayay dadka qaaradda Afrika cutubkeena labaad oo ka hadlayay muuqaalka guud ee qaaradda Afrika cutubkeena saddexaad oo ka hadlayay khayraadka dabiiciga ee qaaradda Afrika iyo cutubkan aynu maanta markaa bilaabi doono oo cutub cusub ah oo ah cutubkeenii afraad wuxuu ka hadlayay markaa cutubkeenan afraad ilbaxnimadii hore ee masaarida qaaradda Afrika dadkii wadankii ugu horeeyay markaa ilbaxnimo sameeya iyo dadkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika markaa ilbaxnimo ama xadaariyad markaasi sameeya waxaanu ku bilaabi doonaa markaasi casharkeena inaynu qeexno kelmadda waa maxay ilbaxnimo ama xadaariyad waxa loo yaqaano waa horumar ay dadku ka sameeyaan xagga dhaqaalaha xagga beeraha waxbarashada siyaasadda iyo bulshada kelmaddaasina ku qeexaniga waa maxay ilbaxnimo ama xadaariyad waa horumar ay dadku ka sameeyaan xagga dhaqaalaha xagga beeraha waxbarashada siyaasadda iyo bulshada kelmadda maxaynu ku qeexanaa waa maxay wax xadaariyad ama ilbaxnimada dadkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika waxay ahaayeen dadka loo yaqaano masaari waa dadkii wadankuna waa maxay waa Masar haddaba waxaynu isweydiin doonaa ardayay Masar halkee bay kaga taalaa qaaradda Afrika markaa khariirad ahaan waxa ay ku taalaa markaa waqooyiga bari ee markaa Afrika waxa la yiraahdaa waa wadan ku yaala ama xuduud leh laba qaaradood qaaradda Aasiya iyo qaaradda Afrika waa qaaradda wadanku waa wadan kamid ah Afrika laakiin wuxuu markaasi aad ugu dhow yahay xuduud leeyahay wadamada qaaradda Aasiya markaa halkay ku taalaa Masar waxay ku taalaa waqooyiga bari ee qaaradda Afrika waxaana dhex mara webiga ugu dheer adduunka oo la yiraahdo Niil xagga dheer Canada ka hadlana webiga ugu dheer adduunka oo la yiraahdo Niil ama Nile webiga Niilku waxa uu Masar u kala qaybiyaa laba qaybood oo kala ah marka waa wadanka dhexdiisa uu marayaa wuxuu u kala qaybiyaa laba qaybood oo kala ah Masarta sare iyo Masarta hoose Masarta sare iyo Masarta hoose wuxuu kala qaybiyaa maxay laba qaybood waxaanu markaa imka halka ku soo dhiganay horta waa maxay ilbaxnimo waa horumar ay dadku ka sameeyaan xagga dhaqaalaha beeraha waxbarashada iyo bulshada halkee bay ku taalaa Masar ama halkee bay kaga taalaa qaaradda Afrika Masar waqooyiga bari ee qaaradda Afrika webiga Niil dalka Masar imise qaybood buu u qaybiyaa Masarta sare iyo Masarta hoose Masarta sare
iyo masarta webigeebaa dhex mara dalka masar webiga niil waxaa dhex mara webiga niil waxaan leenahay haddaba ciwaan hoosaadkeena inoogu xigaa wuxuu noqonayaa sababihii keenay ilbaxnimada masaarida wadamo fara badan buu oo dunida ah ama qaaradda ah ayaa waxaa dhex mara webiyo qaar ka mida maynu soo qaadana waxaynu dhi wadankii ugu horreeyay ilbaxnimo sameeyaa waxay ahaayeen markaa dalka masar sababihii uu ku gaadhay ilbaxnimada taariikh kooban haddii aynu soo qaadano kow horta webiga niil ayaa markaa u sababa kaasi oo kasoo bilaabma dalka Itoobiya casharadeenii horena kusoo dhiganay webiga niil wuxuu kasoo bilaabmaa dalka Itoobiya ilaa 11 dal oo dhex marana waynu soo dhiganay casharadeenii hore webiga niil markaas oo ku yaala qaaradda Afrika webigani waxa uu markaa sameeyaa fatahaad inta uuna ku dhamaanin badda dhexe ama badda loo yaqaano Mediterranean-ka markaa webigani fatahaad waxaynu soo dhiganay casharadeenii hore inay ahayd dhibab ama dhibta ugu badan ee ay keenaan webiyadu oo aynu ka soo qaadanay dhibaatooyinka ay dadka u keenaan webiyadu markaasi kaneeca ka dhalata biyaha webiga iyo fatahaadani markaa daba wadanka Masar waxay u keentay horumar ama xadaariyad fatahaadani ma yahay fatahaad markaasi dhib ku haysa ama dhibaatooyin aynu lahayn inuu daadadkii faraha badnaa ee dadka iyo xoolaha dhibaatada u keensanayay waa fatahaad biyaha yar yihiin isla markaana faa'iido fara badan wadata markaa waxa kale ka mid ah waxyaabaha markaa ay masaaridu u keenay ilbaxnimada ama xadaarada fatahaada webiga niilku ku sameeyay markaa biyaha fatahaad ayaa yaraa wuxuu markaa ku fatihi jiray dhulka hoose ee dhaltada carrada nafaqada leh meesha uu dhigo ayaa waxa la yiraahdaa delta waxaynu ku soo dhiganay afka webiga marka uu ku dhamaanayo markaasi bad ama uu dhamaanayo webigu halka uu ka galayo biyaha badda ee uu socodka yareeyo ee uu camuudda uu sido iska horeysiiyo ee biyaha markaasi webiga qabta goobtaasayna waxaynu ku soo dhiganay in la yiraahdo delta marka webigan niilku marka uu dalka Masar marayo gaar ahaan dhulka hoose ee markaasi Masar wuxuu dhigi jiray markaasi oo carasan oo ku habboon waxbeerashada marka waxaynu oran karnaa webiga laba arrimood buu markaa faa'iido u keenay inuu biyo u keeno dalagii iyo inuu carasan oo ku habboon waxbeerashadu markaa waxaanu leenahay sidaynu ku soo qeexnaba ilbaxnimadu waa waxyaabaha keena xadaariyada waxbeerashadu haddaba waxay keentay inay helaan horta cunto ku filan dadka ku nool wadanka Masar iyo inay dhoofiyaan wixii dheeraad ah markaa waxa faa'iidada ugu badan dadkii ku noolaana waxay heleen markaasi cunto ku filan wadamadii dariskana waxay ama ganacsi ahaan u isticmaaleen inay gaarsiiyaan cunto arrinka saddexaad ee keenay horumarku wuxuu ahaa inay u dhoofiyaan dalalka jaarka ee ay ka mid tahay wadanka la yiraahdo Nubiya ee ay xuduud leeyihiin markaa waa waxyaabaha keenay ilbaxnimada masaarida gaar ahaan uu keenay webiga niilku haddaba waqti kadib Masar waxay markaasi sameysteen maamul mideeya marka laba qaybood bay kala ahayd Masar maamulkii mideeyay labadii qaybood ee Masar waxa la oran jiray boqor la oran jiray wuxuu ahaa markaasi Neerma wuxuu markaa mideeyay labadii qaybood ee ay ka koobnayd Masar boqorkii mideeyay maxaa la oran jiray Neerma waxaanu ardayda soo dhigan doonaa marka haddana haddii la yiraahdo waynu casharkeena inoogu xigi doonaa faa'iidada webiga niilka ama niilka ee dalka Masar uu u leeyahay koow waxa ka mid ahaa carasan oo ku habboon waxbeerashada waa maxay faa'iidada uu leeyahay webiga niil dalka Masar ama wadamadaba uu u leeyahay gaar ahaan laakiin waxaan ka hadlanaa kelmadaheena ku soo koobana faa'iidada uu u leeyahay dalka Masar webiga niilku cunto laga heli jiray webiga dhexdiisa sida kalluun webiga cuntada laga heli jiray waa kalluunkana waxaynu ku soo dhiganay inuu ku noolaa laba qaybood ama aynu soo qaybinay kalluunka ku nool biyaha badda iyo kalluunka ku nool biyaha macaan oo aynu biyaha macaan webiyada iyo harooyinka iyo godinada markaa webiga niilka waxa dalka Masar u keeni jiray kalluun uu markaasi socodka biyuhu soconayaan ku dhex noolaa oo ay daban jireen oo ay markaa cunto ka heli jireen waxa kale oo ka mid ah faa'iidada ay ka helaan webiga niilka dadka Masar ama dalka Masaaridu sida dhagaxaan oo biyihii dhagaxaan bay wada jireen niis dhoobo iyo bataax waxay u isticmaali jireen dhisidda guryaha waxay isticmaali jireen oo kale waxay u isticmaali jireen biyaha
gaadiid ahaan maadaama uu biyahani socdaan dooni iyo saxiinad iyo waxyaabahaas ay u isticmaali jireen iyo ganacsi oo sidii wadda ahaan ayay markaasi u isticmaali jireen waxa uu markaasi lahaa meel ay ka helaan biyo macaan oo loo isticmaalo waraabkii maydhashadii oo markaasi ah waxyaabaha markaasi ay ilbaxnimada ay ka keeneen dadka masaaridu haddaba markaynu ka nimaadno faa'iidada uu webiga niilku u leeyahay inu qodobadan ku soo koobno masaaridii hore waxay barteen xilliga uu fatahayo sanad kasta waxaynu u fatihi jiray sanad kasta bilo isku mid ah oo sanad walba soo noqnoqda marka xilliga waqtiyada qaarka ugu badan ee markay tiriyeen waxa ka mid ah bilaha June ilaa October arrinkan haddaba waxa uu suurtageliyey inay samaystaan tusa taariikheed oo la yidhaahdo calendar bahalka lagu xisaabiyo bisha ee bilaha markaasi noo tirnayo January, February, March, April, June, July markaasi bilahaasi noo tirinayo maalmahayga taariikhda aynu ka eegano oo calendarna ingiriisi lagu dhaado Soomaalina tusa taariikheed wuxuu ka koobnaa 365 maalmood masaarida ku soo kordhisay adduunka tusa taariikheedka iyaga oo ka tirsanaya fatahaada uu webigu samaynayo gaar ahaan bilaha June ilaa October marka waxay sameeyeen inay markaas samaystaan tusa taariikheed si ay u tirsadaan waqtiyada uu fatahayo tusa taariikheedkan ama maalmuhu 12 bilood waxay ka kooban yihiin marka maalmo loo rogo 365 maalmood haddaba taariikhyahan Greega oo la oran jiray Herodotus waa nin Greega oo dalka Greega ka soo jeeda ayaa yiri oraa uu markaa kaga hadlayo faa'iidada uu webiga Niil u leeyahay dalka Masar taariikhyahankan Greega ah ee la oran jiray Herodotus wuxuu yiri markaa oraadiisii waxa ka mid ahayd webiga Niil waa hadiyad la siiyay Masar la'aantiisna Masar ma jirteen waa oraa ama kelmad uu ku sifeeyay faa'iidada webiga Niilku uu u leeyahay dalka Masar marka maxayna oranaa magacaw tilmaam sheeg oraahdii uu yiri taariikhyahankii Greega ahaa ee Herodotus webiga Niil waa hadiyad la siiyay Masar la'aantiisna ma jirteen waxaynu markaa ku soo koobi doonaa casharkeena oo inoogu xiga saddexdii boqortooyo ee masaarida wadanka Masar waxa soo maray oo ka talinayay waqtiyadii hore 3 boqortooyo oo waaweyn saddexdan boqortooyo ee da'da waaweyn ama boqortooyadii da'da waaweynayd baa ugu horeysay saddexdan waxa ka mid ahaa boqortooyadii da'da weynayd oo ka talinaysay dalka Masar 2200 ilaa 2700 Ciise horsi waa tirsigii taariikhdii Nabi Ciise ka horeysay calayhi salaam boqortooyadii dhexe oo yadna ka talinaysay dalka Masar 1800 ilaa 2050 Ciise horti boqortooyadii cusbayd oo ka talinaysay 1580 ilaa 1570 Ciise horti magacaw markaa waxaanu leenahay saddexdii boqortooyo ee soo maray dalka Masar boqortooyadii da'da weynayd boqortooyadii dhexe boqortooyadii cusbayd haddaba bar saddexdan boqortooyadu si yar oo kooban u sharaxi doonaa markaasi iyo waxqabadkoodii boqortooyadii da'da weynayd waxay dalka Masar ka talinaysay 2200 ilaa 2700 Ciise horti waqtigan boqortooyadani ay Masar xukumisay waxay horumar ka gaadheen dhinaca dhismaha oo ay dhisi jireen ahraam badan ahraam waa sawirada markaasi buuraha dhagaxaantooda laga qoro ee loo okeysiyo dad xayawaan oo markaasi buuraha dhagaxaantooda laga qoro marka xilligaa waxay ku horumartay boqortooyada da'da weynayd xagga ahraamta haddaba ahraamta ay sameeyeen waxa ka mid ahaa ahraamtii Jise oo loo dhisay boqor markaasi xukumayay dalka Masar oo la oran jiray Khufu marka ahraamtan waa sawirka halkan inooga muuqda waxay markaasi ku sawirayaan waa labadaas sawir ee sare shayga ay markaasi maamuusayaan
ama tixgelintooda xagga kule ama habdiineed ha u isticmaalaan ama ha sharfaan sawirkan hoosena wuxuu noo sheegayaa webigii niil oo sameynaya fatahaad marka uu marayo dhulka hoose ee Masar waa sawirkaasi inoo sameynaya markaasi marka maxaynu odhanaynaa xilligii boqortooyada daada weyneed Masar waxay horumar ku gaadhay xagga ahraamta oo sawirada markaasi laga qorayo dhagxanta buuraha boqortooyadii dhexe waxay markaasi Masar ka talinaysay 1800 ilaa 2050 1800 ilaa 2050 xilligan Masar waxay samaysatay siyaasad dhul balaarsi ah waxayna qabsadeen dawladihii Nubiya oo ka xigtay xagga koonfureed oo ay gumeysteen marka wadamadii dariska mar haday ay xadaariyad gaadhay ay balaaratay boqortooyo kala duwan ay qabsatay boqortooyadan labaadna waxay doonaysaa inay dhul badan Masar u soo qabato marka waxa kamid ahaa inay gumeysi isticmaashay wadamadii dariskii ee xuduudaha la lahaa ay ku fiday waxyaabaha ay markaasi ka qaadan jireen waxa kamid ahaa wadanka Nubiya ay dariska la tahay ee dhul balaarsiga ku sameeyeen waxa weeyaan dahab fool maroodi geesaha xayawaanada waa dahab waa fool maroodi waa geesaha xayawaanada waa waxyaabihii markii ay gumeysteen Nubiya ay markaasi gumeysi ahaan kaga qaadan jireen waxay xiriir ganacsi la lahaayeen dawladaha Falastiin iyo Suuriya waxaynu ku xigsiin doonaa boqortooyadii cusbayd oo ka talinaysay 1580 ilaa 1570 Masar waxa ay gashay marxalad cusub iyada oo ka soo baxday xilligii kala guurka markaasi ay dib uga soo noqotay waxay markaa mideeyay Fircoon Amhose I waqtigii markaa maadaama laba boqortooyo oo kale markaasi ka soo talisay boqortooyadii ay markaasi jirtay dadkii markaa ay kala qaybsameen waxa mideeyay oo mar labaad isku keenay boqorkii la oran jiray Fircoon Amhose I kii kale inaan ku qaldin labada qaybood ee Masar ay ka kooban tahay waxa mideeyay boqor Neerma boqortooyooyinkii cusbaana waxa mideeyay Fircoon Amhose I boqorkani waxa uu bilaabay sidii uu mar labaad u qabsan lahaa dalalka jaarka ah waana uu ku guuleystay waxa kale oo jirtay xilli markaasi ay horumar sameeyeen dadka markaa Masaarida ama dalka Masar waxa ay horumar ka sameeyeen xagga dhaqaalaha ganacsiga diinta iyo maamulka waayahay hadaba waqtiyadan ay markaa Masar xaggan horumarka ka gaadhay waxa ka talinaysay gabadh boqorad ahayd oo la oran jiray Hatshepsut waa cashar kulay runtii taariikha oo socda waynu insha Allah waxa weeyaan kulay sii wadi doonaa hadaba haddii aynu casharkeena su'aalo kooban iska weydiino horta koobaad waxaan leenahay waa maxay ilbaxnimo waa horumar ay dadku ka sameeyaan xagga dhaqaalaha beeraha waxbarashada siyaasadda bulshada halkeebay dalka Masar kaga taala qaaradda Afrika waqooyiga bari ee Afrika webigeeba waxa weeyaan dhaxmara dalka Masar ee laba qaybood u qaybiya webiga Niil labada qaybood ee webiga Niil u qaybiya waa maxay waa Masarta sare iyo Masarta hoose magaca soobi kana ilbaxnimada Masaarida wow fatahaada webiga Niil oo keeni jiray carasan waxbeerashada iyo ganacsiga magacaas uu boqorkii mideeyay labada qaybood ee Masar wuxuu ahaa boqor Neerma magacaas saddex kamid ah ama afar kamid ah faa'iidooyinka webiga Niil ee uu leeyahay dalka Masar carasan oo ku haboon waxbeerashada cunto laga heli jiray webiga dhexdiisa waxyaabaha guryaha lagu dhisto sida dhagaxaanta niista dhoobada iyo bataaha gaadiidahadana oo isticmaali jireen maxaa kamid ah waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen dunida dalka Masar tusa taariikheed ka kooban 365 maalmood magacaw taariikh waxa weey ninkii Greek ahaa ee yiri oraahda webiga Niil waa hadiyad la siiyay Masar la'aantiisna ma jirteen wuxuu ahaa taariikhyaankii la oran jiray Herodotus
magacow saddex boqortooyo oo soo maray dalka Masar boqortooyadii daada weynayd boqortooyadii dhexe boqortooyadii cusbeyd boqortooyadii daada weynayd maxaa ka mid ah waxyaabaha ay waqtigii ay talinaysaa ay ku hormartay xagga dhismaha oo ay ka mid ahaayeen ahraan badan maxaa ka mid ah waxyaabihii ay qabtay boqortooyadii dhexe waqtigii ay talinaysay waxay sameeyeen siyaasad dhul balaarsi ah oo ay ka mid ahaayeen inay ku fideen dhulka Nubiya oo ay markaasi ka qaadan jireen dahab fool madow iyo geesaha xayawaanka maxaa ka mid ah boqortooyadii cusbeed waxyaabaha xilligii ay talinaysay inay midayso waxa weeyaan waqtigii xilligii markaas dadkii Masaarida oo uu mideeyay boqorkii la oran jiray Fircoon Amhosawaan xilligii marka ay ku hormareen dhaqaalaha ganacsiga diinta iyo maamulka ayaa Masar u talinayay boqorad gabadh ahayd oo la oran jiray Hatshepsut kullu intaasaynu ku soo gabagabayn doonaa xiisada ku xigta Ilaahay idinkii khayr baan idin rajaynayaa ka faa'iideyso wacan qoraal wanaagsan ardayay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh